taliya jenaraal odogo yuusuf raage ayaa ka shafay siyaasiyiin iyo saraakiil al-shabaab u dusiya xogta dagaalka iyo qorshaha qabsashada aadan yabaal oo ay ciidanka dowladda soomaaliya hadda ku howleeyihiin dejintiisa. waxa uu farmuuqay xildhibaano ku tukan furunta oo doonaya inay kulamada ciidanku yeelanayaan ka qayb galaan iyaga oo raba inay helaan xogta say al-shabaab ugu dusiyaan. waa war weyn ee sheegaraya Soomaaliya taliyihii ciidanku wuxuu ishtago ka yahay siyaasiyiinta iyo xildhibaanada raba inay furunta tagaan iyaga oo dana ujeedo al-shabaab la shaqeyna kale. taliyaha odogo yuusuf raage ayaa bannaanka keenay magacyada iyo shakhsiyaadka raggan markaasi doonaya inay al-shabaab u dusiyaan xogta hay-adda markaasi kala duwan ee amniga. warbixintan idin kala wadaagi doonaan xogahan muhiimka ee sheergaraya oo ku faafiya dunida meel walbana ku tooran muuqaalkan idinkoo qaybta faallada nagula wadaagaya aragtidiina waa hagaag aan ku bilaabo. waalidweynaha qurbaa ku nool waalid ka faa'iidayso fursadan ubadkaaga gee maxadkan ay ka baranayaan barashada qur-aanka kariimka iyo culumta shareecada islaamka waana maxad kuu furan 24 saacadood iyo 7 maalmood oo usbuuca waxaana ubadka loo dhigayaa barashada qur-aanka kariimka barashada akhriska higaada luqadda carabiga barashada afkeena Soomaaliga iyo barashada culumta shareecada islaamka sida kutubta fiqiga xadiiska iyo tafsiirka waxa sidoo kale waalidiinta la baraya isla markaana laga saxaya at-tahiyaadka salaada iyo aayad kursida waalid hadda ka faa'iideyso oo hadda isqora maxadka tartiilul qur'aan online oo ah dugsi fac weyn oo ay sanad kasta ka qalin jabiyaan ardayda kala duwan ee caalamka ku nool ballanteenu waa inaynu hore ula xiriirno maxadka tartiil qur'aan online. ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed jenaraal odogo yuusuf raage ayaa bannaanka keenay fadeexada iyo xogta muhiimka ee la xiriirta siyaasiyiin iyo xildhibaano doonaya inay xogta ciidanka. waxaa markaasi gobolada kala duwan ee dalka ka socda abaabul xoogan oo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay kula dagaalamayaan ururka al-shabaab iyadoo deegaanada maalmihii la soo dhaafay lagala wareegay ka mid yihiin deegaanka masaajid cali gaduud ee ciidamada dowladda Soomaaliya iyo ku wajahan deegaanka aadan yabaal oo ahaa markaasi ururka al-shabaab xudun ay ka soo qaadaan duulaamada ay ku kala bixiyaan hiiraan iyo shabeellada dhexe. taliyaha ciidanka xoogga dalka ayaa sheegay ciidamada inay hadda wadaan dejinta qorshihii deegaanka aadan yabaal lagu qabsan lahaa iyada oo ay noqonayso 2 furan oo kala duwan shabeellada dhexe iyo hiiraan maadaama deegaanka aadan yabaal uu ku yaalo aagga xuduudda gobolka hiiraan iyo shabeellada dhexe. dhinaca hiiraan ayaa laga keenayaa furunta hore dhinaca kalena deegaanka masaajid cali gaduud dagaalka hadda ka socda wuxuu ku sii baahi doonaa jiidda aadan yabaal ayuu yiri taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya iyadoo sidoo kale gobolka hiiraan dhawaan lagu soo bandhigay cudud ciidan oo horle kuwaas oo loogu talagalay in al-shabaab kala wareegaan deegaanada kala duwan ay dalka kaga sugan yihiin sida xoog kala duwan ku helayna ay tilmaamayaan. gudoomiyaha gobolka hiiraan cali jeyte cismaan ayaa markaasi magaalada maxaase warbaahinta maruu kala hadlayay wuxuu u ballan qaaday ciidanka macawisleyda in dowladda Soomaaliya iyo hiilba la garab taagan tahay ayna diyaar u tahay furan kasta ururka al-shabaab kala wareegaan inay ku garab siido sidii looga adkaan lahaa ururka al-shabaab loogana baahan yahay dadku inay dhiiradaan ay ururka al-shabaab iska dulqaadaan arrintaasi oo noqon karta mid markaasi ku dhiirigelinaysa shacabka inay si toos ah al-shabaab isaga xoreeyaan deegaano badan oo gobolka hiiraan ka tirsan ayaa al-shabaab laga xoreeyay iyada oo shacabka deegaanka ay hadda wadaan dhaqaaqyada ugu dambeeyay ururka al-shabaab looga xoreyn lahaa deegaanada uu kaga sugan yahay gobolka hiiraan. sidoo kale xildhibaan maxamed abubakar jacfar oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya gaar ahaan xildhibaanada ka soo jeeda gobolka galgaduud oo dhawaan lagu wado in dagaal ka dhan ururka al-shabaab laga bilaabo ayaa isna ku sugan gobolka hiiraan maruu la hadlayay macawisleyda beesha xawaadle oo iyagoo dagaal xoogan ka wada gobolkaasi wuxuu sheegay inay diyaar yihiin in ay xoreeyaan wabxo ilaa iyo galhariiri ilaa ceelbuur ujeedaduna ay tahay in la iska kaashado sidii al-shabaab looga xoreyn lahaa gobolada kala duwan ee dalka. wuxuu sheegay xildhibaan jacfar in mas-uuliyiinta beesha mursada ee ku sugan furunta hore ee gobolka hiiraan ay diyaar yihiin inay beesha xawaadle ka taageeraan sidii al-shabaab iska dulqaadi lahaayeen iyagoona ay rabaan in laga saacido arrintaasi si iskaashiga u ballaarto ururka al-shabaab in laga adkaadana ay u suurto gasho shacabka Soomaaliyeedna
iskaashigoodaasi oo noqon karo siduu hadalka u dhigay waxa weyn ka bedeli karo dagaalka kooxdan lagula jiro shaqareey xogaan qad faraan wali wadaag aragtidiina tan iyo kulan sidoo marnaba geliyo waalidweynaha qurbaa ku nool waalid ka faa'iideyso fursadan ubadkaaga gee maxadkan ay ka baranayaan barashada quraanka kariimka iyo culumta shariicada islaamka waana maxad ku furan 24 saacadood iyo 7 maalmood oo usbuuca waxaana ubadka loo dhigayaa barashada quraanka kariimka barashada akhriska higaada luqadda carabiga barashada afkeena Soomaaliga iyo barashada culumta shariicada islaamka sida kutubta fiqiga xadiiska iyo tafsiirka waxa sidoo kale waalidiinta la baraya isla markaana laga saxaya at-tahiyaadka salaada iyo aayad kursida waalid hadda ka faa'iideyso oo hadda isqora maxadka tartiilul qur'aan online oo ah dugsi fac weyn oo ay sanad kasta ka qalin jabiyaan ardayda kala duwan ee caalamka ku nool ballanteenu waa inaynu hore ula xiriirno maxadka tartiil qur'aan online